السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلا سبسكرايب صار channel كينا قنبل الكنفرها سي 10 والبو أما موضوع والبو أنك هدلينو أو كوكو صودعو intaas kadib maanta waxaan guda galeynaa cashirkeenii toddobaad waxaan ku qaadan doonaa isku xirka xuruufaha shibanayaasha ah iyo xuruufaha shaqalka ah. cashirkan waxaan ku baranaynaa isku xirka shibanaha iyo shaqalada. waxaana isticmaalaynaa xarfaha yaryar marka laga reebo xarafka ugu horeeyo oo aan ka dhigayno xaraf weyn. cashirka toddobaad isku xirka shibanaha iyo shaqalka hadda ayuuna inoo bilaabanayaa. si fiican inaan u sharxo ayaan isku dayayaa, idinkuna dhageystayaal wacan iyo daawadayaal wacan insha Allah. waxaa inoogu horeeyo aan ku baranaynaa xarafka ba waxaan ku dareynaa dhawaaq gaaban, marna waxaan ku dareynaa dhawaaq dheer. ba waxaan ku dareynaa dhawaaq gaaban ama shaqalo gaaban ama shaqal gaaban waa isku mid. haddaan ku bilaawno xarafka ba oo aan ku dareyno dhawaaqa gaaban waa ba. xarafka ugu horeeyo ba waxaan ka dhignay xaraf weyn, maadaama wax walbo la bilaabayo uu xaraf weyn ku bilowdo, sidaas awgeed ayaan ugu bilownay. laakiin inta ka dambeyso cashiradeena waxay ku socon doonaan xarafka yar. marka ba'da waxaa raacday xarafka shaqalka ah ee a. shanta shaqal ayaan ku dareynaa xarafka ba. markaas ayaan fiirinaynaa dhawaaqa codkeena sida uu isku bedelayo. waana u muhiim barashada isku xirka xarfaha shibanayaasha ah iyo shaqalka. barashada afka Soomaaliga waa u muhiim. haddaan isku dayno ba oo aan ku dareyno dhawaaqa gaaban ba, marka ba'da a ku darno waxaan leenahay ba. ba'da kaligeed markay tahay ba waa la dhihi karaa, laakiin markaas waxay u taagan tahay barashada shibanaha. marka haddii aan ku bilaawno ba oo aan a ku dareyno waxay noqonaysaa ba. markaan ku darnana waxay noqonaysaa be. markaan i ku darno waxay noqonaysaa bi. markaan o ku darnana waxay noqonaysaa bo. markaan u ku darnana waxay noqonaysaa bu. hadba waxaad ku hogaaminayo dhawaaqa shaqalka ayaa ku hogaaminayo. meesha uu shaqalka ku jiro ayaa xarafka shibanahana bedelayo. haddii xarafka shibanaha ah oo raaco shaqalkaas qaabka aad ugu dhawaaqaysay ayaad ugu dhawaaqaysaa adigoo xarafka shibanaha ah ku dhawaaqayo. haddii aan mar kale ku celino waxay noqonaysaa ba, be, bi, bo, bu. ba'da markaan ku darno dhawaaqa dheer wuxuu asagana noqonayaa ba. maadaama aan marka hore dhahaynay a, haddana waxaan dhahaynaa ba. waxaan hore kugu soo sheegay xarafka shibanaha ah shaqalka sida loogu dhawaaqo ayuu qaadanayaa mar walba, hadduu yahay ba ama hadduu yahay ya. hadduu yahay shaqalku ama dhawaaqu mid dheer, qaab dheera loogu dhawaaqayaa. hadduu yahay mid gaabanna qaab gaaban ayaa loogu dhawaaqayaa. marka haddii aan mar kale ba'da oo aan ku dareyno dhawaaqa dheer aan ku celino waxay noqonaysaa ba. e'da markaan ku darno shaqal dheerkaana waxay noqonaysaa be. iida markaan ku darno shaqal dheerkaana waxay noqonaysaa bi. markaan ooda ku darno oo shaqal dheerkaana waxay noqonaysaa bo. markaan uuda ku darno oo shaqal dheerkaana waxay noqonaysaa bu. haddaan ku celiyo
anagoo shaqal dheer ka isticmaaleyno ba'dana aan ka bilaabeyno waxay noqonayaan baa, bee, bii, boo, buu. marka xarafka shibanaha ah markuu shaqal gaaban raaco markaan isku barbar dhigno waxay noqonayaan ba, markuu shaqal dheer raacana waxay noqonayaan baa. marka hal mar anagoo isla aqrinayno labadooda ayaan ku dhawaaqaynaa ba, baa, be, bee, bi, bii, bo, boo, bu, buu. sidaas ayuu noqonayaa dhawaaqa. xaraf kasta oo 21 xaraf ee shibanaha ka mid ahna sidaas ayaan ku wadeynaa. haddana waxaan ku xijinaynaa xarafka ta'da ah ee shibanaha anaga oo ku dareyno dhawaaq gaaban iyo anaga oo ku dareyno dhawaaq dheer. mar walbana waxa jiidanayo amaba awoodda iska leh dhawaaqa. haddii aan ka bilaawno dhawaaqa gaaban oo aan ta'da shibanaha ah ku dareyno waxay noqonayaan ta, te, ti, to, tu. haddii aan ku darno dhawaaqa dheerne waxa uu noqonayaa taa, tee, tii, too, tuu. marka haddii aan ku sameyno isbarbar dhig shaqal gaabka markaan ku dareyno ama dhawaaqa gaaban iyo marka aan ku dareyno dhawaaqa dheer. tusaale ahaan ta, taa, te, tee, ti, tii, to, too, tu, tuu. marka dhawaaqa sidaas ayuu isku bedelayaa. marka waa muhiim qof waliba oo baranayo afka Soomaaliga ah inuu xifdiyo sida xarfaha shibanaha ah iyo shaqalkaba la iskugu xirayo. marka casharkeena 7aad ee maanta inta ayaan kusoo gabagabeyneynaa. hadduu Ilaahay yiraahdana waxaan sii gudagali doonaa casharadeena xiga maalmaha xiga. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.